بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal qodobada wararka Sharfino TV caawa aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweyne Farmaajo oo qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay wasiir warfaa oo hortagay golaha shacabka dawladda federaalka oo markab hubsida u dirtay magaalada Kismaayo faafaahin horle oo ka soo baxay gaari ku rugmaday duleedka Cadaado wararka Soomaalida ka baxsan ee caawa aad ku daawan doontaan Sharfino TV waxa kamida dadku geeriyooday qaraxa ka dhacay dalka Ruushka daawadayaal qodobadaas waxay ahaayeen qodobadii ugu door corona warka iyaga caawa fadlan inta aan warkaasi gudu gelin hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe sar si aan u wada xiriirno markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay oo qaybsanaha dhanka taageerada howlgallada ee xogaha guud ee qaramada midoobay Mudane Atul Qare madaxweyne Farmaajo iyo Mudane Atul Qare ayaa ka wada hadlay xaaladda Soomaaliya dadaalka dawladdu ugu jirto dib u soo kabashada dalka iyo mashaariicda horumarineed ee ay qaramada midoobay ka wada Soomaaliya madaxweynaha ayaa u qaybsanaha kala hadlay dardargelinta dadaalada xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya UNSOS na ku garab istaagayo howlgallada ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM si looga horumar dhaliyo dagaalka lagula jiro xarakada shabaab madaxweyne Farmaajo ayaa soo jeediyay u qaybsanaha dhanka howlgallada ee xogayaha guud in xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya uu xooga saaro sidii mudnaanta koowaad loo siin lahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo qaato shaqooyinka qaramada midoobay madaxweynaha ayaa sidoo kale Mudane Qare kala hadlay dhismayaasha qaramada midoobay ee Soomaaliya ay noqdaan kuwa waara oo aan ku meel gaar ahayn si loogu adeego bulshada marka howlaha haatan lagu talagalay dhamaadaan isagoo adkeeyay in dawladda federaalka Soomaaliya ay mudnaan gaar ah siinayso ilaalinta deegaanka dhankiisa Mudane Qare wuxuu madaxweynaha uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran isagoo u ballan qaaday in uu ka shaqeynayo sidii wax looga qaban lahaa qodobada ay ka wada hadleen iyo dardargelinta taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya dhanka kalena dawladda federaalka ayaa markab hub sida u dirtay magaalada Kismaayo ayaa saakay waxa lagu soo waramayay in markaasi uu gaaray markab siday hub kaas oo la sheegay in uu ku xirtay degada magaalada Kismaayo xarunta maamulka Jubbaland markabkan ayaa la sheegay in ay dirtay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana hubkaasi loo waday qaybta 14 ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inuu isku dayay in uu hor istaag ku sameeyo hubkaas balse waxa ka hortagay talaabadaas ciidamada AMISOM wararka ayaa sidoo kale inta ku daraya ugu dambeyn ciidamada xoogga dalka gaaraan qaybta 14 ee la wareegan hubkaasi dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegay in bandow xoogan madaxweyne Axmed Madoobe uu ku soo rogay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ciidamo badan oo ka tirsan kuwa Jubbaland ayaa lagu arkay magaalada Kismaayo oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Sadiqa Xirsi Warfa ayaa baarlamaanka ka hor akhriyay sharciga shaqaalaha rayidka oo wax ka bedel lagu sameeyay wasiir Warfa ayaa xaqiijiyay in sharcigan lafdhabar uu dadaalada socda waxa ka bedeli karo lagu sameeyo inuu sahlayo in la helo shaqaale xirfad isla markaana fulin kara howlaha adeega qaranka tan iyo markii uu magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Al-Qare wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan xooga saaray sidii isbedel lagu sameyn lahaa arrimaha shaqada iyo arrimaha bulshada gaar ahaan dib u habeynta shuruucda iyo soo saarista siyaasadda qaran oo hagta wasaaradda ayuu yiri wasiir Warfa wuxuu kale intaas uu ku sii diray sharciga adeega rayidka wuxuu lafdhabar u yahay dadaalada aan ugu jirno in la helo shaqaale Soomaaliyeed oo loo qoro hab furan leh xirfadda shaqo isla markaana fulin kara howlaha adeega qaranka horyaala sharcigan adeega rayidka waa mid lagu maamulayo shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed wuxuuna sharcigan muhiimad gaar ah u leeyahay habsami socodka howlaha qaranka wasiirka ayaa cadeeyay sawaha keen isbedel lagu sameeyo sharciga shaqaalaha rayidka wuxuu qodobka koowaad ku sheegay dalka isku bedelay federal sharcigi hore ma uusan qeexnayn qiimaynta booska qofka uu ka shaqeynayo halka wax ka bedelka ay sharciga uu gogol xaarayo hab gaar ah oo lagu maamulo sharcigan cusub waxa uu ahamiyada siinaya kheyraadka aadamiga ayuu ku daray wasiirka ugu dambeyn wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa xildhibaanada ka codsaday in ay meel mariyaan sharcigan kadib markii ay waajibkoodu ay gutaan
wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta uu ku rogmaday gaari la socday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Galmudug gaariga rogmaday oo ahaa nooca dagaalka isla markaana ay la socdeen askar badan ayaa waxa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartaasi dad goob joogayaal ah ayaa markaasi sheegay in shilkaasi uu hal askari ku geeriyooday halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo loo qaaday cisbitaalka guud ee magaalada Cadaado sidoo kale goobta uu falka ka dhacay waxa tagay dadka deegaanka iyagoona gurmad degdeg ah u sameeyay askartii waxyeelada gaariga rogmaday iyaduna ay burburtay gaarigaasi shiralka iyo rogmashada gaadiidka ay saaran yihiin askartu waxa inta badan loo sababeeyaa darawalada wada gaadiidka kuwaasi oo si xawaare ah u kaxeeya xiliyada ay marayaan wadooyinka warka dibadda haddii aan u wacnana booliska waddanka Ruushka ayaa sheegay inay ugu yaraan 7 qof ku geeriyoodeen 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay gaari waday shidaal oo ku rogmaday gobolka Severodolvik ee dalkaasi gaarigan oo waday 5,000 oo litir gasolina ayaa la sheegay in uu dab xoogani ka kacay xilli uu marayay wado weyn oo isku xirta degmooyinka Karpinski iyo Kayatam afayeenka booliska gobolkaasi Valery Golerov waxa uu sheegay in uu darawalka jabiyay sharciga wadooyinka kadib markii uu xakameyn waayay gaariga taasi oo sababtay inuu gaarigu ku dhaco meel kanaala afayeenka waxa uu tilmaamay in ugu yaraan 3 qof ku geeriyootay dhacdadaasi halka 7 kale uu soo gaaray dhaawacyo kala duwan iyo gubasho qaarkoodna waxa la sheegay in la dhigay cisbitaalka waxa kale uu sheegay in baaritaan kadib la ogaaday in uu darawalka oo 51 jir ahaa cabsana xilliga uu shilku dhacay guud ahaan warkii caawa aad kala socoteen TV-ga Shafinho daawadayaal waynaga inta fadlan ha ilaabin inaad subscribe tiraado like na aad dhahdo asxaabtan u share garayso